بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوده halkan waa barta YouTube ee Bagax Media haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee Bagax Media fadlan adigoo aad u mahadsan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee mar waliba hela isla markaana haleela xogaga iyo warbixinada gaarka ah ee aynu soo gelino bartan YouTube ee Bagax Media daawade sida oo kale muuqaalada aynu ku soo gudbinayna haddii ay noqdaan kuwa ku raali geliya isla markaana aad ka hesho asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay kaga helaan muuqaalada aynu soo gelino bartan YouTube ee Bagax Media bartan YouTube alaaba daawade waxaynu soo gelinaa isla markaana aynu kaga hadalnaa barnaamijyo dhowr ah oo qayb ka tahay barnaamijyo aynu kaga hadlayno toddobaadka waxyaabaha la isla dhaxmaraya baraha bulshada annagoo aynu u eegi doonno isla markaana ka fiirin doonno xiisadda iyo xamaasadda uu xambaarsan yahay waxyaabaha markaa bulshada Soomaaliyeed ay isla dhaxmarayaan buraha bulshada sida oo kale daawade markaynu idiin soo gudbinayno xogta waxaynu ka eegi doonnaa haddaba maxay tahay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta barnaamijyaadka la isla dhaxmarayo baraha bulshada annagoo dhinacyo badan ka eegi doonna sida oo kale dabagal dheeraad ahna ku samayno waxaynu idiin soo gudbin doonnaa xogta iyo xaqiiqada ka dhabka ah barnaamijyaadka marka la isla dhaxmaraya baraha bulshada sida oo kale daawade bartan YouTube ee Bagax Media barnaamijyaadka gaarka ah ee aad ka heshaan isla markaana alaaba aad kala socon kartaan ayaa waxa qayb ka ah waxaynu ka hadalnaa taariikh nololeedka fanaaniinta Soomaaliyeed annagoo marba soo qaadan doono sida oo kalena aynu u kala eegi doono fanaaniinta Soomaaliyeed toddobaad waliba waxaynu ka hadalnaa ku dhawaad ilaa iyo 3 fanaan oo aynu ka hadli doono taariikh nololeedkooda min bilow ilaa iyo dhammaad xilligii ay fanka ku soo biireen waxyaabaha u sahlay ku soo biiritaanka fankooda iyo sida oo kale taariikhda fanaanka aynu ka hadlayno oo dhameystiran ayaa alaaba idinkugu soo gudbinaa bartan YouTube ee Bagax Media haddaba waxaynu idiin soo gudbin doonaa barnaamij la xiriira fanaanka Maxamed Biibshe iyo sida oo kale toddobaadkan waxyaabihii la isla dhaxmarayay oo baraha bulshada qabsaday iyadoo labadii maalin ugu dambeysayna dhanka Facebook la soo dhigay sawiro muujinayo in fanaanka Maxamed Biibshe uu xiran yahay haddaba barnaamijkan gaarka ah aynu idiin soo gudbinayno ayaa daawadayaal waxa aynu kaga hadli doonaa maxaa ka dhab ah xariga fanaanka Maxamed Biibshe ma dhaba in uu xiran yahay sida oo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaynu idiin soo gudbin doonaa maxay tahay xariga Maxamed Biibshe sababta loo xiray muxuu sababsanayaa in Maxamed Biibshe uu xiran yahay sida oo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaynu idiin soo gudbin doonaa ilaa iyo imise cishe ayuu fanaanka xabsiga ku hooyanayaa haddii ay xaqiiqo tahay in uu xiran yahay fanaanka Maxamed Biibshe barnaamijkan gaarka ah daawada intaynu ku guda jirno ayaynu kaga hadli doonaa ugu horeyn aynu ku hormarno dhanka iyo baraha bulshada waxyaabaha la isla dhaxmarayay xariga fanaanka Maxamed Biibshe maxaa ka xaqiiqo ah ama ka dhab ah ilaa iyo 4 warar aynu ka helayno magaalada Nairobi xiran yahay Kenya dalka Kenya ayaa waxay soo waramayaan sababta in habeenkii afraad uu xiran yahay fanaanka dhowr ah oo la isla dhaxmaraya ayaa waxay sheegayaan in fanaanka Maxamed Biibshe oo doonayay garoonka Jomo Kenyatta timo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu xiray garoonka Jomo Kenyatta kadibna helnay isla markaana ka imaanayo magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa intaa waxa ay ku darayaan in ayaa waxa ay noqonaysaa habeenkii afraad ee fanaanka Maxamed Biibshe hooyanayo isla markaana uu xiran yahay xabsi ku yaala gudaha magaalada Nairobi fanaanka Maxamed Biibshe ayaa ilaa iyo haatan barjura xabsi ku yaala halkaas ilaa iyo haatan ma jirto si rasmi ah maanan hadashay xariga fanaanka Maxamed Biibshe haddii ay ahaan lahaayeen fanaaniinta Soomaaliyeed waxyaabaha gaarka ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo warar iskhilaafsan oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in fanaanka xilligii lagu qabanayay garoonka Jomo Kenyatta uu doonayay in uu u socdaalo gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana sidaa loogu xiray garoonka Jomo Kenyatta wararka iskhilaafsan ayaa intaa waxa ay ku darayaan in fanaanka Maxamed Biibshe arrimo ku saabsan baasaboorka lagu haysto walow arintaas aan si rasmi ah loo xaqiijin isla markaana xaqiiqadeeda aan si dhab ah loo helin geesta kale ilaa iyo haatan ma jirto cid si rasmi ah kaga hadashay xariga fanaanka Maxamed Biibshe oo habeenkii afraad ku hooyanayo xabsi ku yaala
dalka Kenya oo haddii ay ahaan lahaayeen fanaaniinta ay isku tiimka ahaayeen oo ku dhaqan gudaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya ama sida oo kale mas'uuliyiinta iyo madaxda sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya maadaama Maxamed Biibshe uu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed weliba fanaaniinta da'yarta ah ee muddooyinkii u dambeeyay fankooda ay aad u xiiseynayeen ummadda Soomaaliyeed dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd kadib markii xurriyadiisa uu dib u helay alfanaan Maxamed Qadar Ibraahin Keyow oo muddo dhowr toddobaad ah ku xirnaa xabsi ku yaala gudaha dalka Itoobiya alfanaan Qadar Keyow ayaana xabsigaas wax uu ku muteystay isla markaana xabsi xarigiisa loo sababeeyay ayaa la leeyahay arrimo ku saabsan baasaboorka fanaanka ayaa marka hore waxaa la sheegay in gudaha dalka Itoobiya uu u safray uu ku galay baasaboorkiisa Soomaaliga sababaha safarkiisa ayaana waxaa lagu sheegay in uu doonayay qaadashada baasaboorka dalka Itoobiya qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dowlad deegaanka dalka Itoobiya ayaana fanaanka u gartay isla markaana ku casuumay in uu qaato baasaboorka dowladda Itoobiya sidaa ayaana fanaanka waxaa la sheegay in lagu qabtay garoonka dalkaas Qadar Keyowna lagu arkay labada baasaboor xildhibaan Carabow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisa ay tahay deegaanka uu ka soo jeedo alfanaan Qadar Keyow ayaa dhaxda u xirtay isla markaana ka mid ahaa mas'uuliyiintii dadaalka aadka u faraha badnaa ku bixiyay soo deeyitaanka fanaanka Qadar Keyow alfanaan Qadar Keyow ayaana sidaa waxa ay ku sahashay in xurriyadiisa uu dib u helo soo dhaweyn aan loo kala harin isla markaana aan caadi ahayn loogu sameeyay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho soo diismadii alfanaan Qadar Keyow ayaa mar kale waxa ay sababtay in fanaanka Maxamed Biibshe xarigiisa la soo wariyay isla markaana xogtiisa si rasmi ah loo helo ku dhawaad markii 4 cisho uu ku xirnaa xabsi ku yaala gudaha garoonka Jomo Kenyatta ee dalka Kenya sida oo kale baraha bulshada qoraalo dhowr ah oo la soo dhigay ayaa waxaa baaq loogu dirayay mas'uuliyiinta deegaan doorashadooda ay tahay deegaanka uu ka soo jeedo alfanaan Maxamed Biibshe in ay u kacaan sidii loo soo dayn lahaa fanaanka isla markaana xurriyadiisa uu dib u heli lahaa iyadoo wariyaal iyo sida oo kale fanaaniin caan ah ay baraha bulshada gaar ahaan bartooda gaarka ah ay Facebook ay ku soo daabacayeen qoraale ay kaga xun yihiin xariga loo geystay alfanaan Maxamed Biibshe isla markaana ay baaq ugu dirayeen mas'uuliyiinta deegaan doorashadooda ay tahay deegaanka uu ka soo jeedo alfanaan Maxamed Biibshe in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u baxaan isla markaana ay dadaal dheeraad ah ugu bixin lahaayeen soo deynta fanaanka maadaama ku dhawaad 4 cisho uu ku xiran yahay xabsi ku yaala dalka Kenya waxa ayna sidaa oo kale wariyaasha iyo fanaaniinta bartooda gaarka ah ee Facebook qoraalada ay ku soo daabacayeen ay kaga hadlayeen sida ay kaga xun yihiin xariga alfanaan Maxamed Biibshe isla markaana mas'uuliyiinta deegaan doorashadooda ay isku deegaanka yihiin fanaanka ay baaq cod dheer leh ugu dirayeen sidii loo soo dayn lahaa fanaanka isla markaana xurriyadiisa uu dib ugu helin lahaa maadaama uu ka mid yahay fanaaniinta da'yarta Soomaaliyeed ee xiliyadii ugu dambeeyay fankooda aad loo jeclaa isla markaana dhalinta Soomaaliyeed ay aad ugu xirnaayeen haddaba daawade barnaamijka xiga ayaynu kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha ku soo kordha xariga alfanaan Maxamed Biibshe xaaladihii ugu dambeeyay ee markaas uu ku sugan yahay fanaanka ayaan idiin soo gudbin doonaa baaqyada isdaba joogga ah ee soo baxaya cidii ka soo jawaab celisa dowladda Kenya xariga fanaan Maxamed Biibshe waxyaabaha ay ka dhaxdo waan idiin soo gudbin doonaa bartan YouTube ee Bagax Media ay aad daawanaysa daawade muuqaalkan haddii uu noqday mid aad ka hesho asxaabtaada waa u sii share gareyn kartaa sida oo kale haddii muuqaalkan aad daawanayso uu yahay daawashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee Bagax Media fadlan adigoo aad u mahadsan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aalaaba aad u hesho xogaga wararka warbixinada gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbinayno waad ku mahadsan tahay booqashada aad soo booqatay bartan YouTube ee Bagax Media laakiin aad noo saarto share-na aad sida oo kale noo samayso dhiirigelin ayay noo tahay
waad ku mahadsan tahay booqashadaada daawada mar kale iyo mar kale